Rashford waa uu nala dhaafay intii aan ka naqinay oo hadda waa macallin bixinaya cashiro qiimo badan oo noqonayaba sida ugu wanaagsan oo ay tahay in gool loo dhaliyo. xariifkan aan kula nasiiraynayn tan iyo markii laga soo laabtay dhacdadii koob adduun ee ka dhacday dalka Qatar ayaa isaga taagtaagsaday difaacyadii Leicester City ciyaar qiimo badnayd oo ka dhacday tiyaatarka riyada ee Old Trafford. tillaabadheeraha reer England ayaana lahaa laba ka mid ah 3 gool oo ay la timid Manchester marna kama daalaan taageerayaasha United daawashada hibada burqanaysa ee Raj. halka midda kale uu lahaa kabiirka shakhsi ahaan u soo kobcaya ee Sancho isla markaana saaxadda kubadda cagta ka lumay tan iyo sidii loo aadayba dhacdadii koob adduun ee ka dhacday dalka Qatar balse hadda muujinaya waxa uu yahay iyo waxa uu gudo. godkii ay galaan ciyaartoyda Leicester City waxaba kala soo baxayay kulankan oo harsigana u diidayay Sabistar Bruno Fernandes oo cagta soo dhigayay jiha kasta oo ka mida garoonka iyo ma arxamaha weyn ee Lisandro Martinez. De Gea isna lama iloobi karo sida uu kaga soo dhalaalay doorkiisa gool hayanimo. ciyaar nuuceeda oo kale xiisaba loo qabay ayaa horyaalka Faransiiska ku dhaxmartay naadiyada waaweyn ee PSG iyo Lille. wixii ka dhacay halkaasi waa wax la arkaba qarnigiiba mar. kooxda magaalada Paris oo iskala weyday ayaana Lille min bilowgiiba ku aamusisay 2 gool oo ay u dhaxaynin waqti badan waxaana kala qaybsadayba Mbappe iyo Neymar. laakiin Lille oo marti loo ahaa ayaa labadaasi ku badashay 3 kale marka ayuuna in the tag uun ka soo heray mucaashaqiinta PSG oo ayba u sii raacdayba in dhaawac anqowga ah dartii ciyaarta looga saaray Neymar oo ilmaynaya. laakiin mar kastaba rajadooda ma xumayn taageerayaasha PSG waayo filasho la'aan maba noqon kartaba koox kulmisay mucjisadii reer Argentina ee Lionel Messi iyo faraskii casmaraaniga ahaa ee reer Faransa Kylian Mbappe. daqiiqadii 87 ayuuna Mbappe ciyaarta ka dhigay barbardhac 3-3 ilaa iyo ugu dambayntii gaabkii cagaha ka fallaa ee Lionel Messi daqiiqadii 95 uu si degan oo la jeclaysto gool ugu badalay laad xur ah oo ay heshayba PSG. waxaana la dhihi karaaba gool nuucan iyo kale Lionel Messi inuu ka dhaliyo horyaalka ligwaanka Faransa waxayba noqonaysayba wax loo qabay xiisa badan. Messi ha joogo Argentina ama PSG mar kastaba waa Leo. boqortooyadii kubadda cagta Yurub ee Real Madrid weli waxay dhex mushaaxaysaa waayaheedii wacnaa ileen mar waxay noqonaysaa kooxda dunida marna waxay u taagan tahay Yurub oo ay u raacdaba inay noqonayso koox sidoo kale daafacanaysa La Liga Spain. kooxda ka dhisan Santiago Bernabeu oo kulmisay intaasi oo dhan ayaana ciyaarteedii ugu dambaysay waxay isaga baashashayba kooxda Osasuna oo ay ku garaacday 2 gool iyo waxba. waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay warbixintan ilaa iyo dhammaadkeeda. waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman.